Waxaa jiray wiil dhalinyaro ah kaasoo aad u jeclaa inuu mar noqdo qof guuleysta, balse ma uusan garanayn sida uu ugu guuleysan lahaa waxa uu doonayo inuu gaaro oo ah guul. Maalin ayuu la kulmay nin oday ah oo waayo arag ah, noloshana wax badan ka soo arkay. Wiilkii odaygii waayo aragga ahaa ayuu la sheekaystay. Xoogaa kadib waxa uu weydiiyey su'aashii maskaxdiisa kasoo dhex guuxaysay oo ahayd, waa maxay sirta guusha? Ninkii odayga ahaa wuxuu ku yiri wiilkii, waan kaaga jawaabayaa ee aan beri isugu imaano qarka webiga. Sidaas ayaana lagu ballamay oo lagu kala tagay. Maalintii ballanta markii la gaaray oo ay labadoodiiba soo xaadireen webiga, ayaa ninkii waayo aragga ahaa ku yiri wiilkii, ina keen aan biyaha galne. Biyihii ayay galeen. Markii ay bartamaha webiga gaareen ayuu ninkii weynaa madaxa ka qabtay wiilkii yaraa, isagoo hoos ugu riixaya biyaha. Wiilkii xaaladda ayaa ku adkaatay ilaa ay indhihiisu casaadeen. Wax yar kadib ayuu sii daayay. Wixii ugu horreeyay ee uu sameeyo wiilka yar markii la sii daayay waxay ahayd inuu madaxa kor ula soo baxo oo uu neefsado. Ninkii odayga ahaa ayaa wiilkii weydiiyey, markii aad ku jirtay biyaha oo aan madaxa kaa hayay, maxay ahayd waxa aad ugu jeclayd inaad hesho? Wiilkii ayaa ku jawaabay, hawo si aan u neefsado. Odaygii ayaa yiri, waxa aad doonayso inaad ku guuleysato ilaa aad u raadiso sida aad u raadinaysay hawada markaad biyaha ku jirtay, kuma guuleysanaysid. Sirta guushuna waa taas.